xafladan runtii waxay daaran tahay encouragement ama dhiirigelin loo samaynayo dhammaan shaqaalihii wasaaradda waxbarashada oo lagu encourage garaynayo korna loogu qaadayo waxbarashada gobolka kadib markii ay kormeerku u kuur galeen arday macallin iskuul guda iyo dibadda gobolka kormeerku waxay qabanayaan waajibaadkoodii iyagoo toosina iyagoo saaxiibo waxay soo heleen in wixii daldaloolaha wasaaraddu leedahay la wadaagaan cidda ay khusayso ma aha inaan leenahay intaasaa ugu fiican laakiin kolley mar kasta wax la qiimeeyo inuunbaa fiican ama inuunbaa la soo qaataa laakiin waxaan dareensanahay in intan iyo in badan oo kaleba ay fiican yihiin waxaana loogu talagalay in xafladan in la ogaado in la og yahay runtii xafladan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Togdheer ay soo qaban qaabisay waxaan ugu talagalay iyo waxa ay daaran tahay ayaan doonayaan aan ka iftiimiyo waa xaflad isha ku haysa ama ujeedadoodu ay tahay inaan qiimayno ama aan dib u eegno sanad dugsiyeedkii dhammaaday 2018-2019 shaqadii la qabtay xubnihii ugu firfircoonaa ama shakhsiyaadkii doorka muhiimka ah ka ciyaaray hawlihii waxbarasho ee sanadka ah in halkan lagu xuso bini aadankana waxa ugu qaalisan damiirka haddaan wax kale la tarayn damiirkiisa la yidhaahdo shaqo wanaagsan baad qabatay waad mahadsanta in la yidhaahdo taasoo aan uga jeedno inaan dhiirigelino maadaama shaqaalahu uu yahay halbowlaha laamaha dowladda halbowlaha howlaha adeega aan hayno maadaama uu yahay shaqaaluhu wasaaradda waxbarashaduna waxa ay haysaa uu yahay dad ama kuwa wax la baraya ha noqdaan ama kuwa wax baraya ha noqdaan ama kuwa maamulaya ha noqdaan waxaanu ugu talagalay in aan dadkii ugu qiimaha badnaa ama hawlihii ugu cuslaa qabtay ee ugu firfircoonaa inaan halkan ugu abaal celino haddaan hoos ugu dhaadhaco laba arrin ayaan labadaba doonaya inaan halkan maanta uga mahad celiyo waa mida jaamacadaha gobolka Togdheer ka howlgala oo kaalin mugle ka qaatay inay kor u soo qaadaan ardaydii dugsiyada sare fasalada afraad sanadkii tegay imtixaankii shahaadiga oo fadhiistay kuwaasoo ay naga aqbaleen codsi dabadii inay si mutadawacnimo ay u kabaan galaasyo dheeraadana ay gelika dambe u siiyaan arrintaa waxaan doonayaa inaan anigoo wasaaradda waxbarashada ee ka wakiila ee gobolka inaan uga mahad celiyo aan idhaha jaamacadii wax wanaagsan baa nala qabateen aad iyo aad baa u mahadsantihiin mahadnaqa labaad ee xafladanu daaran tahay waxa weeyaan shaqaalihii wasaaradda waxbarashada ilamaa shaqaale hoosaad ka bilaabma ilaaliye nadiifiye macallin waardiye iyo maamul intaba inaan qiimaynay sanadkii dib u eegnay shakhsigii aanu isnidhi shakhsigaas ayaa ugu firfircoonaa inaan isagana halkan abaalmarin iyo mahadnaq aan ku guddoonsiino runtii arrintaasoo aan jecelahay sanad dugsiyeed kasta markuu dhammaado inaan arrintaa dib u qiimayno waa sanadkii ugu horreeyey muddo kooban baanu hawsha wadnay wax badan maanaan qaban laakiin waxaan uga jeednaa oo aan doonaynaa muddada aan joogno inaan waxbarashada iyo ummadda uga tagno system iyo nidaam kobcinaya ama wax ka taraya howlaha adeega waxbarasho kaasoo aanu doonayno inaan ku dhiirigelino shaqaalaha si ummadda aan u adeegaynaana ay u helsho adeeg wanaagsan oo hufan gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha imtixaanadaba waxaan awgeedii ku soo gudbinayaa sanadkii dhammaaday xubnihii ugu firfircoonaa shaqaalihii waxbarashada guud ahaan oo aan ka soo xullay ilaa waardiye nadiifiso darawaliin macallimiin iyo maamulba
waxaa kaloo halkan iyagana aan si guud doonaya inaan halkan uga mahadnaqo hortiina ugana sheego madaxda jaamacadaha oo iyaguna kaalin mug leh ka qaatay kobcintii iyo tayeyntii waxbarashada dugsiyada sare. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa intii uu maxamuud meesha yimid waa guddoomiyihii ugu horreeyey ee isku xidhay aqoonsaday inuu yahay wakiilka rasmiga ah ee dowladda dhexe uga wakiilka tacliinta sare iyo tacliinta dhexe iyo ta hooseba. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa barnaamijkaa wanaagsan iyo sida wanaagsan ee uu agaasimay isku xidhkaa uu sameeyey iyo shaqada ka muuqata waxbarashada. waxaana aan rajaynayaa inay tahay dardarta cusub iyo siyaasadda cusub ee dowladda cusub ay la timid iyo xubnaha cusub ee maanta ka shaqaynaya maalin walba qol hadday gacanta ku haysa wax xafiisyo la isku bedelo. waxaan rajaynaynaa kuwa dambe iman doonaana inay intaa ka sii wanaajin doonaan. wasaaradda waxbarashada marka macnaheeda la sheegayo waxaan odhan karaa waa halbowlaha ummadda. macallinku waa waraabiyaha ama arooriyaha nololeed ee ummadda bulsho kasta ay leedahay, heer maamul iyo heer macallimkeed iyo inta ku hoosnooda ee la shaqaysa. waxaynu odhan karaa maanta cid kasta oo maanta mudan oo dalka joogta waa meesha waraabisay ee waxbartay ee runtii maanta maamuuska wasisay. haddii maxamuud gudoomiyaha wasaaradda waxbarashadu uu maanta helay inuu xuso oo sharfo oo karaameeyo intiisii la shaqaysay isaga gaar ku ahayd iyo intii isgarab taagtay, waa wax ilaahay loogu mahadnaqo, waana waajib runtii saaran. kuna halkaa laga sheegay inaan ku sii dadaallo mooyaane haddaynu reer burcan nahay hadiyo goor wanaaggan bilownaa gobol ahaan. wanaaggaan bilownaa waynala kaa mirowsadaayo waa la sii qudaawo. waxa aan hadan ku bilaabinayaa inaynu sanad walba qabanno insha allah bismi illaahi kariim. dugsiyada gaarka ah iyo wasaaradda waxbarashada beriyaha haddan baa taagnaa. waxaa kolka tiifiyada gaarka dugsiyada gaarka ah oo iyagoo hal dhul keliya ah ama gola wakiilada tegaya ama keligoo war-saxaafadeed soo saaraya ama kolba meel ka hadlaya si oo yihiin qulub mucaarada ama xisbi mucaarada ama qulub waxaan kuli muxuu ahaa meel wasaaradda la murmaya. waxaan odhan lahaa iskuma jirtaane saddex qaybood baa tahay xuquuqaal baan idin nahay. saddexdaa qaybood waxay kala yihiin qaybo waxbarashada maalgashaday oo dhaqaalahooda ku maalgashaday oo iskuuladooda dhisay oo horumar sameeyey oo halkaa taagan oo la odhan karo dalka iyo dadka waxbay ku soo kordhiyey, laakiin aan garan la ahay sababta isku guuridi ka dhigtay. xeerkaa waxbarashada wuxuu qoraya goobaha aan u qalmin goob waxbarasho in ruqsadda lagala noqdo ama goobaha aan u qalmin goob waxbarasho in qiimeyn lagu sameeyo. horta qolooyinkiinaas qiimeyntaa waa ka baxaysaa. waxaan garan waayay sababta sharcigaa u diidantiin inuu fulo. unugan dugsiyada gaarkaa uga mid ah og marka qiimeyn la sameeyo inay ku hari doonaan qiimeyntoo aan goobahay haystaan ee waxbarasho aan ahayn qaar u qalbo goob waxbarasho oo warwar ka qaba inay ka mid noqdaan kuwa ruqsadda lagala noqonayo amaba kuwa xeerkaas saamaynayo, waana kuwa difaaca ugu adag ku jira. qolo saddexaad baa jirta mucaawimooyin iyo deeqo khayri ah ayay waddamada carabta ka keenaan. waxay warwar ka qabaan haddii xeerkaasi hirgalo in wax badan lagu guda dhacayo oo dawladdu ogaanayso. burco horta wax walba yadaa bilowda. diwaankii bilowga ayuu baynu arrintan noogu daraynaa. xildhibaan bidhibaad hoosta ka weydiiyeen horta ma sharkiyo khayrkaba burca may bilowda mise waa khayrkoo keliya. marka wuxuu khayrka ayaanu u badannahay inaan hab iyo jeer bilowno. shar haddaan bilownana anna khayruba ku dambeeyaa buu yidhi. marka waxaan horta burco ugu hambaliyeynayaa wax kasta oo wanaagsan inay bilaabaan. arrintani waa arrin uguba runtii. waxaanan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa guddoomiyaha waxbarashada gobolka maxamuud caynaanshe. waa arrin runtii muddo hore ahayd inay bilaabanto dalkoo dhan ka bilaabanto. weliba wasaaradda waxbarashadoo keliya maaha wasaaradahoo dhan inay ku daydaan baan aad u soo dhaweynayaa. sababtoo ah shaqaalaheennu maadaamuu lacagtay qaataan ay tahay lacag yar oo de aynu nahay dal aan la ictiraafin miisaaniyaddiisu yar tahay
haddaynu wax kala weyno kelimatu dayiba sadaqa siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa tani kelmad fiican weeyi inaynu markaa shaqaalaheennii wax qabanayey runtii aynu nidhaahno waad mahadsantihiin maxamuud qudhiisu isagu shahaadaduu bixinayaaye haddaan de anagii badha saabka hore u sii ognay annaguna horta isaga mid baanu siin lahayn waa siin lahayn runtii waananu sii ogeen isagaanu de mid siin lahayno waayo waxa weeye waa dadaal gobolka ku soo kordhiyey runtii waxbarashadeeda waanan ugu hambalay sidiisana qofku wax wanaagsan markuu qabto abaalgudka bini aadmiga waxa ka weyn ka ilaahay oo dee jannaba lagu mutaysan karo camal kasta oo wanaagsan oo khayriyood qabataana miisaankaaga xasanaadkuu kuu gelaya oon istus iyo darajo ku doonaya ka wada nadiifa maxamuud aslaan ku aqaana waxa weeye isagoon ahayn guddoomiye waxbarasho gobol ayuu runtii ahaa lafdhabarta waxbarashada gobolka maanta runtii anigu aad iyo aad baan u faraxsanahay sababtoo ay tahay waxaan halkan ku arkay wax intii gobolka aan joogay aanan arag ama intii magaranaysaa aanan indhahaygu qabanin barnaamij noocan oo kale ah oo runtii ah barnaamij aad iyo aad iyo aad gobolka iyo qaranka jamhuuriyadda somalilandba waxtar weyn ugu leh barnaamijkan oo lagu abaalmarinayo dad shaqooyinkii loo diray sidii ay ahayd uga soo baxay dad islaama baynu nahay waxaynu u baahanay qofka marka waajibkii loo diray uu ka soo baxo abaalmarinna wuu mudan yahay mahadnaqna wuu mudan yahay marka runtii waa sunno wanaagsan oo aan jecel lahay inuu haddii eebbaydankeed leeyahay uu noqdo sunno wanaagsan oo ka bilaabmay gobolka togdheer dhammaan qaranka jamhuuriyadda somaliland wada gaadha sidoo kale madaxda kala duwan ee gobolka togdheer waxaan fariin uga dirayaa inay sidan oo kale wasaaradda waxbarashadu ay yeeshay oo uu oday ka yahay guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka togdheer maxamuud xasan caynaashe inay iyaguna u abaalmariyaan oo ugu mahadnaqaan oo mujtamaca iyo bulshada u soo gudbiyaan oo u soo bandhigaan dadka howlihii qarankee loo egmaday sidii ahayd uga soo baxay waxaan arkaynaa in halkan lagu abaalmarinayo maamulayaasha iskuullada waxaan arkaynaa in lagu abaalmarinayo macallimiintii waxaan arkaynaa in lagu abaalmarinayo shaqaalihii wasaaradda waxbarashada waxaan arkaynaa in lagu abaalmarinayo jaamacadihii ka qayb qaatay kor u qaadista waxbarashada gobolka togdheer waa arrin aad iyo aad wanaagsan oo qiimaheeda leh waa arrin ku dayasho mudan waa arrin loo baahan yahay laamaha kale ee dowladda madaxdooda inay kaga daydaan runtii waan uga mahadnaqayaa guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada mar labaad sunnaha wanaagsan ee inoo ballaysimay ee uu gobolkeenna u ballaysimay idinkana aad baan idinka mahadnaqayaa guulaystayaasha ku guulaystay maanta in abaalmarintan la siiyo ee ka socda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska sidoo kale jaamacadahana waa uga mahadnaqayaa garab istaagga ay la garab istaagtay wasaaradda waxbarashada inay kor u qaadaan tayada ardayda sekandariga